Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada dood gaaban oo aan maanta u bandhigayo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhaqamadoodii soo jireenka ahaa waxyaabaha iska bedelay. Magacaygu waa Cabdirasaaq ama abwaan ka baxay sidaa u taqaano. Dooddu maanta waxay tahay qoraal aan saa ka soo dhigay oo aad u faafay oo aan ku sheegay 7 hablood ama 7 gabdhood oo qaangaar ah, shaqana aan aadayn, waxbarashana aan aadayn, guri wada joogo, se guriga ay joogaan qof jaariyad ah ama shaqaala ama anti waxa ay dhahaan ay ka shaqeyso oo diracyadooda iyo dharkooda ay dhaqayso, waxay cuni lahaayeen ay karinayso. Arrinta la yaab kale ee falanqaynta ugu badan ka dhalatay waana arrin xaqiiqo ah oo jirto oo maanta jirto. Dadka qaar dooday ka soo celinayaan gabdhaha kali maxaa shaqada ku khasbay. Jawaabihii aan bixinayo waxaa ka mid ahaa shaqaalaha kuu shaqeeya waa gabar oo qowmiyad kale ka dhalatay, ayada yaa ku khasbay inay shaqayso. Midda kale middan guriga joogto kaba soo qaad 7 ma aha, aniga waxaan arkay waa 7 8 6 5 inta badan. Yacni aniga dadkan dhegeystaa waxaan sameeyaa research ama baaritaan waxyaabo fara badan intaan community dhex socdo waxyaabo badan baan dhegdhegayaa. Waa arrin jirto, iga qabo oo ogoosonow oo ha kaa dhacdo. Waa arrin jirto, wax la dafiri kara ma aha. Soomaalida horena waxay ku mamaahi jirtay meeshay hablo ku bataan haamaa ku uraan. Haamaha micnaha waa weelasha guriga. Waa run oo arrin jirto oo na haysato waaye. Waana wax sababahaya maanta hasha meesha ay bulshada Soomaaliyeed ka dhaqan tahay waxay ahayd dhanka dumarka, dhanka hooyooyinka. Balwad may lahaan jirin, dad shaqeeyo oo ragga ciladaha ay leeyihiin kaba ayay ahaan jireen. Laakiin maanta ciladihii ayaga ahaa waxay ku imaato dumarkii. Waxaa soo hartay marka maxaad ragga keli oga hadlaysaa ragga, maxaad dumarka keli oga hadlaysaa ragga, maxaadan oga hadlaynin. Waa dood ayadana furan oo jirto. Marka maadaama qoraalkii uu dumarka keli ahaa, waxaan go'aansaday inaan muuqaalkan duubo si marka aan raggiina dhankoodii aan u ifiyo. Ilaa gabdhaha ayaaba noqonayaan arrinta aan sheegay tu sahlan markii loo fiiriyo ragga. Okay, horta Soomaali meel walbo ay joogto dadka ugu howlkarsan, ugu shaqada badan, ugu lexjeclada badan. Lexjeclo waxaa la yidhaahaa qofka inuu hantidiisa ama inuu wax tabcado ama hantidiisa aabihii uu ka soo gaaray ama wixiisa inuu asaga xooggiisa wax ku soo saarto oo wixiisa ilaashada ayaa la yidhaahaa lexjeclo. Qofka inuu lexjeclo leeyahay. Dadkii marka Soomaalida ugu lexjeclaha badnaa rag iyo dumarba waxay ka imaan jireen miyiga, hadday beer tahay iyo hadday tahay xoolaha la dhaqdo. Marka aan ka soo bilaabo miyigi marka magaalada aan imaado, midda koowaad maanta waxaa jiraan baabuur jaadka geyso tuulo walbo. Markuu dhigo gaariga qaadka waxaa sii qaadaan mootooyin. Marka waxaa dhacday maalin dhowita anigoo socdo meel Garissa County ka mid ah dhanka Wajeerna u dhow ayaa waxaan wadooyin meeshan lagtan banaankan waasow wadooyin baa iskaga khaldameen. Marka ari baan meel fog ka arkay, gaarigii baan kaxeystay, wadada waan ka leexday oo arigii xaggiisaan aaday si aan oga tilmaansado jidka halkuu galo. Qofka ariga la jiro waa af Soomaali ku hadlaya. Marka waryaa ma fiican tahay, warsee tahay, ma nabad baa, wax walba uu fahmi waayo. Unasema nini wada yaa tan ku yiri ani Turkaanaan oo igu yiri. Wixii markaan tuuladii tagay aan u socday ayaan wareystay marka dadkii waxay yiri naagahoodii bay keensadeen Samburti, Turkaanadii, Boorantii, maxaa la dhihi jiray Kaambadii. Dadkii ma aha marka shaqadii guriga antidii keli ma aha. Marka wiilka odayga wuxuu dhalay 3 xaas buu qabaa, wuxuu dhalay 12 wiil iyo 12 gabdhood. Gabdhihii biyaha ayay doonayaan mid fiican oo adaama la guursanay. Waxaa lagu guursadaa 14 jir 15 jir meeshan miyigeeda. Waxaa loo dirayaa wiilkii qaad buu cunayaa, ariyuhu xadaa. Marka hadda eeg ariyuhu xadaan, xoolahay meelaha ka xadaan, jaad bay cunaan, way seexdaan, saar bay tuntaan. Miyigii meeshii lexjeclada ka jirtay waxaa burburiyey jaadkii. Okay, gabdhihii baa soo haray. Gabdhihii baadiyihii maanta waxay ku hartay shaqadii way haystaan weli baan dhihi karaa intooda badan. Marka magaalada aan imaado, markaan magaalada u imaado dhibaatada magaalada u weyn maanta haysato waxaa waaye guri walbo waxaa joogtaa gabar garoob ah oo 2 canug 3 canug ilaa 5 canug wadato
oo ninkii ilmaha ka dhalay uunan ku biilin ama ayada suuq ha u gasho ama aabaheed iyo hooyadeed ha caawiyaan ama walaalkeed ha caawiyo walaasha meel ha kaga tegi ma laha qoys walba iyo qof walbana maanta way haysataa waxaa guriga jooga marka gabdho lasoo furay oo 3 4 ama 2 gabdhood adi dhowr gabdhood oo lasoo furay baa guriga joogan marka intaanan ragga caayin ee dhin ragga gabadhan muxuu u furay waan u imaan doonaa taa waa khalad aan horta isweydiina gabadhan maxaa loo soo furay kow eedda koowaad waxay saaran tahay gabadhan hooyadeed kumay abaabinin sida reer loo dhaqdaba antii baa guriga oga shaqaynaysay waxbarashay ku jirtay way huruday cunto si loo kariyo ma taqaano gurigan markii la keenay ninkan waxbuu filayay ninkan wuxuu filanayay inuu gurigan uu ka helo hoy wanaagsan siduu hooyadii ku soo arkay waxbuu filaya ninkan waxbuu soo arkay marka anaga dhaqan haddaan leenahay hawsha guriga hooyaa lahayd aabbahana keenaha buu ahaa wixii guriga lagu cuni lahaa buu keeni jiray waa dhaqanka haddaad ka tagtana okay haddaad reer magaal noqotay research samee reer Yurub markii hadda la waayay generationka inuu sii baaba'ay waxaa la ogaaday in ragga iyo dumarka ay guurki ka carareen ragga ay guurka ka carareen waxay oga carareen naagti iyo ninkii inay shaqada u simeeyeen oo asagan wax keen aydan wax keen noqotay marka gabdhihii reer Yurub ama iyo Mareykanka waxay dhaheen eegan aniga gurigan fadhinaysanayna ragga ha soo shaqeey maxay la baraf baabana dilay dhan waan dhamaanay marka hadda ay isbadbaadinayaan oo sidii anaga dhaqanka nooceed bay ku soo laabanayaan marka guriga ma dhisnaanayo hadday hooyada guriga ka shaqaynin waa mid la ogyahay marka gabdhihii saa ayaa loo soo furayaa inaad gabadha guriga hawshiisa ay qabato waxay u tababaraysaa inay reerkeeda dhaqato okay raggi baa soo haray maalin dhaweeytay magaalada Gaaris webiga go'ay inta badan ragga xamaalo oo ama guryaha dhiso ama biyaha xireenka marka carrada guryaha kaga shuba dadka ama hadduu pipe dilaaca hagaajiyo waa ragga Kenyaatiga qabiilada kale Kenyanka u dhashay ama madowga ama jararka aan dhahno now waxa wallahi billahi tallahi aan idinku dhaaranayaan arkay qof ama nin ama hooyo Soomaaliyeed ama aabba Soomaaliyeed oo rag guriga u joogaan 5 wiil ilaa 4 wiil oo qaangaar ah reerna aan lahayn oo kubadaha ciyaaro oo fooda intaa la eg tahay qadaadkana u xiran yahay oo raadinayo loo soo diray wadadu soo istaagay maxaa irwaan salaamay in hebel miya tahay seeta fiican khayr maxaa nin mukaambe oo carro meel lagaga shuban raadinayo way u dhahay waa wallahi billahi tallah yani ceeb u arkaa inuu gurigooda carro ku shubo marka gabdhaha kali maaha waxaan ka hadlayaa qoraalkii aan u soo qaatay wixii marka ayada igu soo dhacay buu ahaa laakiin mawduuca wuu gudo weyn yahay marka intaan u soconaa halkeen ku wajahanahay waa hooyadan waxay dhigtaa qudaar waxay ku jirtaa suuqa way xamaashaa guriga waxa u fadhiyaa rag ilaa 4 5 6 ah dumar ilaa 5 4 6 ah ninkan gabar bay ku dartay ilmuu dhalay ilmihiisi ma biisho gabadhan nin bay gurigeeda bay dhaqan waysay guriga imaatay ma shaqayso hooyadeed baa biilaysaa ayagii bay korisay ilmahoodii bay korinaysaa marka walaal markaan gabdhaha guriga kama shaqeeyaan ha soo boodin ani gabadha shaqaysatay ee shaqaalaha qabsato kuma darin maxay ayada way ordaysaa way shaqaysanaysaa wiilka shaqaysto ee hooyadii shaqaale u qabto kuma darin marka waxaan ka hadlayaa maxaan intaan ku wajahanahay hadda caadi bay noqotay macnaha caadi bay noqotay gabadha guriga inay ka shaqayso taada kale cidiina waa masaakiin bandol barta in lagu gado gabar yahay naagtan shaqaalaha ay jiraankaada u shaqayso bishii waxay ka qaadataa 15,000 13,000 ilaa 10,000 adi Soomaali baa wayba kaaga dhigayaanbo inay lacag ku koriyaan baa laga yaabaa shaqadan qabo waxba dad caayidood iska dhaaf hal sanad hadda 7 sano 8 sanaad gashaanti tahay oo waxba qabanaynin 2 sano 3 sano bal waxaad seef garaysataa bishii waxaad seef garaysataa 10,000 ama 8,000 ama 6,000 ama 5,000 ba meel dhigo miisir ku furo nolosha meel baad ka bilowday war adigan jiifo badiil ama majarafad waxaad sooxili lagu dhaho kijiko qaado gaariga soo rar maalinkii ninka mukaambiga ee gaarida radaa 3 gaari rabto waa 600 wax meel dhigo mooto ku gado mootadaas marka ku dhibi nolosha saasay ku bilaamataa laakiin nolosha ku badla daawdo iyo jiif aad jiifto kuma bilaabato marka society ama bulsho burburayso ayaanu nahay arrintan ayaan ka doodaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh